كل wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka VOS ku soo dhawaada barnaamijka Saaka iyo VOS qodobada daawan doontaana waxa ka mid noqonaya shirkii ay ku baaqday dawladda federaalka inuu ka dhaco magaalada Garowe ayaa dib u dhacay iyadoo shir kalena lagu wado inuu berri ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu booqday imaamka Mudulood oo habeen hore lagu rasaasay Muqdisho caabuqa coronavirusna waxa uu dardar ku hayaa magaalada Muqdisho iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu ku dhawaaqay olole ka dhana caabuqaasi sidii looga hortagi lahaa senator Yusuf Xaaji waxa uu ku geeriyooday wadanka Kenya waxa kale oo aad barnaamijka ku daawan doontaan midowga musharaxiinta xilka madaxweynuhu waxa ay ku baaqeen in jimcaha soo socda ay banaanbax ka dhigayaan magaalada Muqdisho iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo arrintaasi digniin ka soo saaray qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan barnaamijka inta socdo mar kale iyo Saaka iyo VOS aanu ku bilownay shirkii uu shaaciyay madaxweynaha Soomaaliya inuu 15 bishan ka dhacayo magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa dib u dhacay iyadoo 15 bisha maanta ku beegantahay isla markaana maamulka Puntland uu laba jeer diiday martigelinta shirkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay guddi ka kooban 14 xubnood oo shanta dawlad goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka kuwaas oo bari shir ugu furmayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay guddigaasi ayaa waxa ay diyaarin doonaan shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyagoo lagu tilmaamay inay yihiin guddi farsamo kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii heshiis doorasho loo gaari lahaa guddigaasi ayaa lagu tilmaamay inay qayb ka yihiin guddiga qaran ee wada hadalka dhinaca doorashooyinka oo ra'iisul wasaaruhu shalay ku dhawaaqay shirkan ayaa sidan oo kale waxa uu hore u baaqday ama ugu baaqday magaalada Dhuusamareeb oo uu madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay bilowgii bishan February inuu ka qabsoomo magaaladaasi inkastoo markii dambe dib u dhac kadib loo furay hayeeshee uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hoygiisa ku booqday imaamka Mudulood oo 2 maalin ka hor lagu rasaaseeyay dekedda Muqdisho imaamka iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay ka hadleen dhacdadaasi sida ay u dhacday iyo sidoo kale dawladda federaalka doorka uga banaan in ay qaado ama talaabada uga banaan in ay qaado maanta halkan waxaan u imid inaan idin la wadaago ka dawlad ahaan wixii dhacay shalay oo ah wax xun oo aad looga tiiraanyoodo waxaan uga tacsiideynayo imaamkayga wixii soo gaaray oo uga tacsiideyna taas waa midda koowaad midda labaadna waxaan rabaa inaan idin sheego waxa imaamka ku dhacay kaliya imaamku uma dhicin anigu igu dhacay sababtoo imaamka wiilkiisaan ahay waa mathala hortaas inaan ogaataan rabaa cidiga xigtana inaysan jirin oo aan aniga ahay garabkii imaamka marka marna ana isku tacsiideynayo marna imaamkayga u tacsiideynaya taas waa midaas waxaan rabaa halkan inaan idin kaga sheego cidii dhibka geysatay umaysan geysan siyaasad ahaan waa wax qaab daran oo si xun u dhacay laguna talagelin laakiin aan marsiinayno tallaabadii sharciga ay ugu habooneed waana ku daba jirnaa waana bilownay taas inaad ogaataan aan rabaa tan kale waxaan rabaa
imaamkayga inaan u sheego iyo duubabkayga inaan rabo inaan arrintaasi gooni uga xaalno ugana wada fadhiisanno guddina u samaysano go-aankeedana aan wada qaadano hadduu ilaahay raalli ka noqdo. awalan marka ugu horeyso ra-iisul wasaaraha in soo dhawaado igaarkeena qaaligahay waaye intii dadaasha waa ku mahadsan yihiin oo ah iyakuna wasiirada gudoomiye cali ganey iyo intii la dadaashaba aadaan ugu mahad celihaynaa. niman saraakiil xataa xaran noo yimiday oo asluubta ka socda iyakana waa mahad celihaynaa iyo military taliyaha militariga waa noo yimid isaguna aad u mahadsan yahay. waxaa waaye masaajidka qayla ka yeerta marka lama soo kala herin weliba wasiirka arrimaha amniga wasdaba joognay iyo wasiirka maxuu ahay awqaafta iyo diinta haddaan imiday intaan imaanaan horta isla hadalnay saan isla fadhiisana weli isla taagana marka mahad weyna celihaa waxaan dhici jirnaa nagu dhacay nasiibna waa leenahay maxaa jiro anaga haddaan dhib cuno ilmo dhindhilhayga naga dhaawacan moogi wax dhiboo kalena gaara ma leh anaad aragta orka gurigaasaa lagu jiida saabay isla u shaqshaqeen waa yaabaysaa marka ilaahayaa noo gargaara horta ilaahay noo gargaaron dhibna gaarsiinaan ku mahadihaynaa anaguna ra-iisul wasaaraha hadduuba maanta noo yimida kama weynin haddii alla yidhaahdo gogasho goobta inta la soo galo imaamkana waxaas halaysiiya waa ceeb markaasaad u guddoonteen ogaas anna waa idinla guddoomay waana ku mahadsan yahay. maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay inuu qaadayo olole ama bilaabayo olole ka dhan ah oo looga hortegayo cudurka coronavirus la yidhaahdo kaas oo dardar ku soo laabtay. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in cudurka coronavirus oo dardar ku soo laabtay isla markaana dad gaaraya 1202 qof oo baaritaan lagu sameeyay laga helay 91 qof shalay oo kaliya. dadkaasi 85 ka mid ah waxa ay ku nool yihiin gobolka banaadir. Puntland ayaa waxa ku nool 6 qof halka ragga ay yihiin 56 qof dhadigana waxa lagu sheegay 35 qof. dadka ka bogsaday coronavirus waxa tiradooda lagu sheegay 6 qof. 24 saac la soo dhaafay dadka corona u dhintay waxa ay tiradoodu gaaraysaa 4 qof. tirada guud ee dadka laga helay coronavirus ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa 5183 qof halka ay ka bogsatay 3739 qof. dhimashaduna ay marayso 152 qof guud ahaan dalka. maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay ololahani wacyigelinta ah ee 17 degmo sida ay sharaxayso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir Basma Amir. shir degdeg ah ayaa duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iskugu yeeray 17 degmo ee gobolka banaadir iyo waaxda caafimaadka ee dawladda hoose xamar. shirkaaseti oo loogu hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa ama bulshada lagu badbaadin lahaa oo ah soo laba kacleyn uu soo laba kacleeyay cudurka COVID-19. sidaad ogtihiinba COVID-19 waa cudur u baahan in bulshada laga wacyigeliyo ee daawadiisa ay tahay wacyigelin iyo kala fogaansho iyo gacmaha si sax ah mar walba loo dhaqo. bulshada Soomaaliyeed ee magaalada ku nool duqa magaalada Muqdisho waxaan awaabulnay wacyigelintii ballaarna ee 17 degmo gobolka banaadir oo loogu hortagayay ee doorkii ay ku lahaayeen gobolka banaadir iyo degmooyinkiisaba. sidaad ogtihiinba wacyigelintaas ayaan ka bilaabi doonaa 17 degmo gobolka banaadir. bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan fariimaha caafimaadka ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee sheegayaan ee ahaato bulsho isku xiran ka fikira noloshooda. nafsa bini'aadanka ah waa shay qaali ah aad ku taxadirtaan kala fogaataan aad ogaataan face mask-na inaa xirataan. face mask waa waxa kaliya loogu hortagi karo cudurka COVID-19. sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan soo laba kacleynta soo laba kacleey way ka cudurkan way ka dhibaato badan tahay tii hore ee na soo dhaaftay. Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaada diinta islaamka ku xirnaada ka taxadira nafsadiini qaata fariimaha caafimaadka qaata fariimaha gudbinayaan wacyigelinta bulshada ee ka shaqeynaya wacyigelinta ee doorka gobolka banaadir. annaga waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino ummadda Soomaaliyeed 3 milyan ilaahay wax badbaadin kare laakiin ka taxadirno ka shaqeyno siday fariimaha u gaari lahayd hadday noqon lahayd warbaahinada hadday noqon lahayd wacyigelinta gabaarida wacyigelinta dawladda hoose xamar ee u diyaarisay hadday noqon lahayd tiimkii ka shaqeynaya wacyigelinta oo lahaa culamaa diinka haweenka dhalinyarada gobolka banaadir. intaba waxaan diyaar u nahay berita hadduu ilaahay yiraahdo wacyigelin ballaaran oo magaalada Muqdisho oo ka wada bilaabanayo. waxaan rajaynayaa bulshadana
inay si sax u qaataan ee ka fikiraan nolosha bini'aadanka wax la heli kara maahan duqa magaalada muqdisho wuxuu ku taagsaday maanta oo amaamiirta ugu badnaa uu ka bixiyey badbaadinta shacabka Soomaaliyeed qof kasta muwaadin Soomaaliyeed nafsada bini'aadanka inuu badbaadiyo ayaa loogu baahan yahay doorkaaseetina qof kasta naf ku jirto islaam ayaa loogu baahan yahay cudurka waa dilaa iska jir gaar markaad isku aragtid cudurka ka badbaadi bulshada ka badbaadi gurigaaga isku karantiil qolkaaga la xiriir dhaqaatiirta Soomaaliyeed isbitaal Martiini isbitaal Banaadir oo loogu talagalay in la geeyo bulshada magaalada Muqdisho haddaad isku karantiish gurigaaga aad xanuunka intii in ka badan aad dareentidna la xiriir dhaqaatiirta ku diyaarsan sida lacag la'aanta inay kugu daaweeyaan diyaar ku ah la xiriir ummadana ka badbaadi cudurka hadduu adigu kugu kooban yahay waxaa laga yaabaa saaxiibadaada inuu gaaro ka badbaadi saaxiibadaada ka badbaadi ummadoo dhan culamaa u diinkana waxaan u sheegaynaa masaajidaha face mask waa in la qaataa dugsiyada quraanka sidoo kale waxaan kaloo u sheegaynaa goobaha ganacsiga oo duqa magaalada aad maanta ugu la hadlay goobaha ganacsiga ganacsatada Soomaaliyeed inay face mask iyo anti-germiska ee keenaan goob kasta ganacsi maqaayadaha bulshada iskugu imaanayaan sidoo kale in la keeno asagana face mask iyo anti-germiska in la keeno hoteelada waaweyn meel walba bulshada iskugu imaanta mas'uul ayaa ka saaran mudane mas'uul ayaa ka saaran qof Soomaaliyeed tahay badbaadi ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa ay shirey ku qabteen Muqdisho ku sheegeen in ay dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ay tahay inuu xafiiska baneeyo iyagoo ku baaqay banaanbax ka dhan ah oo arrinkaasi lagu diidan yahay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo u hadlay midowga musharaxiinta ayaa waxay sheegeen in jimcaha soo socda ay taalada daljirka daahsoon ku qaban doonaan banaanbax laga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday iyagoo sheegay in 6 maalmood oo si sharci darro ku degan yahay madaxtooyada Soomaaliya murashaxiintu anoo magacooda ku hadlaya waxaan rabaa inaan idin la wadaagno waxa ay u taagnaayeen murashaxiintu ugu weynaa waxay ahayd dalka inay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo sidaan wada ognahay waa maalintii 6aad ee madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo haddana doorashana aysan qabsoomin ifafaalaheeduna uusan muuqanin sidaas oo kale hay-adaha kale dastuuriga waqtigoodu waa dhamaaday dadaal lagu qanci karo oo muujinaya dawladdu inay daacad ka tahay qabasho doorashana ma jiraan waxaan rabaa inaan dib u milicsado xilliyadii hore dadka aad in loogu mashquuliyey doorasho hal qof iyo cod ayadoo dadaalkeeda aan la arkaynin oo dadaalkeeda uusan soconin markii dambe waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban in la qabto haddana fulinteedii waa lagu heshii waayey ilaa haddana waa taaganta arrintaas wax kale uma qaadanayna waxaan u qaadanaynaa dawladdu inaysan daacad ka ahayn inay doorasho xura oo xalaal qabato taas macnaheedu waxa waaye mas'uuliyaddii dawladda loo dhiibay ee ahayd dalka inay doorasho geliso in dastuurka la dhammaystiro in amniga la sugo in shacabka Soomaaliyeed la soo jiido in lagu fashilmay wax walba oo dadaal ah oo caawi kara arrimahaas murashaxiintu maalinna kama gaabin haddana ilaa hadda ma jiraan ififaalo noo muujinaya lagu kalsoonaa karo inay doorasho qabsoomayso waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto wali uusan qabsoomin waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dawladnimada ayaga iska leh cidda loo haayana waa ayaga waxa lagu tartamayana waa ayaga cidda hogaaminaysa dalka haddii sharciga jabiso sharcigu ma ilaashamaayo sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dawladnimada waana tii aan soo wada aragna sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha sababtuna waa mid aan sheegnay isu soo baxo waa xuquuq dadku ay leeyihiin dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyay amnigaan la haynin siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan la haynin siyaasad arrimo dibadda toosan aan la haynin dhaqaalaan la haynin doorashadii aan xal loo haynin
sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan banaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado ayaan ugu yeeraynaa dadka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها قدوميها مدوغا ايا كدواجي قضب كوباد مهمة وين محوها شركة جرائد dadka Soomaaliyeed in badan aan anagu ka dignay dawladuna maxaa banaanbaxas mar hore aan ku dhawaaqnay markii koobaad iyo markii labaad ma aha intaasna maxuu ahaay bal nidaamka iyo mushkilad hal ilaaliyo oo maxuu ahaay fasaxa la doonto oo ayadoo sharciga iyo dastuurkuba xataa oo noo baneynaya haddana bal si aan marmarsi loo helin fasaxi waa la waayay laakiin haddee markaa nin qaldan waqtigiisii dhammaaday xilligiisii dhacay xuquuqdii asaasiga ahayd haddii aan anagu tanaasul ka sameynay dadka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xataa weli aan u soo istaagaynin marka banaanbaxaas uu dhacaa haddii aan la yiraahdo banaanbax nabadeed waaye oo lagu xoojinayo nabadda iyo maxaa codka dadka shacabka Soomaaliyeed in codkooda la dhageysto taas waa qodobka kale dawladnimada Soomaaliya waa soo jirtay waa sii jiraysaa dalkan waa dawlad uu leeyahay dawladiisu waa jiray waxa mas'alad ay ka taagan tahay hogaankii iyo mas'uuliyaddii waaye iyo xilliga dhammaaday waaye waxa laga hadlayo billaahi calaykum madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday waqtigiisa waa dhammaaday wixii laga sugayana waa keeni waayey waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu madaxweynihii hore mushkiladuu qayb ka yahay xalka qayb kama ah dadka rajada ku sii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo waxaan isleenahay in ay dib u eegaan wadadii la soo maray iyo waayihii la soo maray u baahan tahay 4 sano oo muddo u haystay madaxweynaha cid ka hortimid iyo cid qabsatay iyo cid la dagaashay iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas'uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin taarmkiisaan ixtiraamayna dadkan kor iyo hoos ugu sheegayna madaxweynuhu muddo la doortay muddo uu leeyahay lama hadli karo baarlamaanka sidoo kale haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay wuxuu markay dhamaadaan wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waay haddana aanay soo muuqanin annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa walwalkeena iyo walwalka shacabka Soomaaliyeedna waa ugu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda taas waaye mid ugu horeyso in laga jawaabo u baahan waxaan kaloo rabnaa ma aha kaliya mas'uuliyiinta maanta joogta in xilligooda uu dhammaaday mas'uuliyiinta hore ay yihiin marka aan leenahay mushkiladay qayb ka yihiin xalka qayb kama aha mithaalka ugu sahlan sheey kana waa maxay magaalada Muqdisho wadadii dabka dhagax la dhigayaa saakana gadaa ciidamo loo sii raraay adiga maxaa ku macnay kartaa bal qofka Soomaaliga ee aqligiisu uu fiyo yahayo maxaa ku macnaynay amni darra magaalada Muqdisho loo joogi laayay wadadii dabka ee Makka Mukarrama dhagax dhinac laga dhigayaa laakiin ciidan iyo qalab iyo hub iyo adduunya waxa lagu gurayaa diyaarad lagu daabulayaayo gobolka Gado la geynayaa gobolka Gado gobol Soomaaliyeed waa dadka Soomaaliyeed degan nabaday u baahan yihiin is afgaraday u baahan yihiin dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo wada xaajood iyo walaalayaal in loo abaabulay u baahan yihiin siyaasadeeda dadka dowlad goboleedka ay ka tirsan yihiin iyo dowladda dhexe haddii xataa uu farqi ku yimid in laga wada hadlo laga heshiiyo ay u baahan yihiin haddii madaxweynaha shalay gobolkii Gado hal xal mushkiladiisa markii uu dhuusan rab oo dadkii joogo wali in la sii hadlo diyaar oo ka soo safray maantan oo ciidamo si daabulaayo oo leeyahay doorashadiina aanay soo soconin oo hadda wixii lagu heshiiyo dhan ay waxba ka socolayeen ilaa maanta la joogo bari iyo caawa iyo bari dab wixii imanaya ilaaha garanaya soo sax ma aha marka inaan dhahno madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay xalka qayb kama aha waxaana loo baahan yahay qofka hadduu mas'uul yahay ama xil ha haayo ama xil hore ha uga dago ama mid hore soo qabto ama mid hadda u socdo hadda qaban xil inuu qabto rabo yahay mas'uul waay mar walba waa inuu xalka uu qayb ka noqdaa oo aanu marna qayb ka noqonin mushkilada iyo khilaafka iyo colaadda iyo isdilka iyo dhiigga Soomaaliyeed daadintiisa meel ay cudurdaar ku leedahay ma jirto siyaasad ay cudurdaar ku leedahay ma jirto awood dawladnimo cudurdaar ku leedahay ma jirto waxaan rabnaa marka
dadka Soomaalida u sheegaynaa mushkiladda dalkan haysatahay dawladdiisa waa jirtaa dawladdu leeyahay waa soo jirtay wayna sii jiraysaa insha Allah waana sii xoogaysanaysaa laakiin hoggaanka maanta jooga ee sharciyadii ka dhamaatay inay ka dhamaatay inay aqbalaan diidan waxaa cudurdaar laga dhigtay meeshaan firaaq inuu dhaco ma rabno hadda firaaq inuu dhaco adaa ka shaqeeyo haysa shalan adaa ka soo shaqeysa maantana adaa ka shaqeeyo 4 sano muddo aad qabtay si aad uga fikirtay firaaq inuuna dhicin hadda marka ka soo shaqeysa inuu firaaq dhaco maantana aad meesha la soo istaagtay firaaq inuu dhaco ma ogolin qof la doorta aniga bedelayo qof la doortayna aad diidan tahay inay meesha timaado iyo sidii lagu dooran lahaa in laga wada hadlo laga xaajoodo laga heshiiyo si qaanuuni ah iyo sida habooneed adaa ku keeni weyda waqtiga saxda ahay dadka Soomaaliyeed ha fakaraano aqligooda ha soo noqdo mas'uuliyiintii hore ee dalkan meesha uu maanta jooga soo istaajisay maxaa la dhihi jiray Soomaalidu wuxuu ku maamaha jirtay ninku dilay harkuguma jiido meena wuxuu la dhihi jiray hoggaanka maanta dalka jooga dalka meeshaan inuu soo istaagay sabab u yahay xal laga sugaa sabab maana waa sheegnay xalkan qayb kama noqon karaan mana aha haddii xataa qayb ay ka noqonayaan ahlan wasahlan keligood laguma hadlayn karo meel intaan u soo saacna 4 sanaan meel u jiifnaan lahayn dalka mas'uuliyiin uu leeyahay hoggaan uu leeyahay waa la doortay dimuqraadiyad waa lama hadli karo lagama daba hadli karo lagama hor imaan karo aan soo lahayn wixii qaldanna aan u sheegayno la war meeshaan wasadan waa laga fiican yahay war sidaan si ka fiican loo suubiyaa jirto war sidaan qaanuunku ma ogolo war sidaan waxay ka soo horjeedaa muxuu ahay wixii aan ku heshiinay waa soo lahayn 4 sano laakiin marna su'aal ma gelinin sharciyadda hoggaanka iyo hay'adaha dalka jiro laakiin ayagaa su'aal geliyay ayagaa keenay meesha maanta taagan tahay waana la iswarsanaa waxaan qabnaa taas waa qodob kale waxaan rabaa saaxiibada Soomaaliya sidoo kale ayagana dardaaran waata ku eedayn mayno laakiin waa kula dardaarmayna xalka inay qayb ka noqdaan oo dhinaca xalka jira ay ka jiriyaan oo qofkii xalka aan soo wadin ay yiraahdaan adiga u kaadi xal soo ma wadida ama adiga kaligaa ma leeyda waa lagula leeyahay xalka ay yiraahdaan yaan ka rajaynaynaa laakiin mushkilad looma uumiye mushkiladda inaan loo sii uuminin ayaan muxuu ahay ayagana ayaan talo ku siinaynaa oo aan leenahay dooray leeyihiin doorkooda ha qaataan saaxiibada Soomaaliduna ayagaa mas'uuliyadda ku dhacay waxa xumaanaya ayaga ka xumaanayaane inta indhaha kala qaadaan waxa ku habboon ay qabsadaan ha muujiyaano waxa ka maqan ha muujiyaano waxa ay rabaan ayadoo aan marna aanan la aadaynin in dhiig Soomaaliyeed daato in dhib dhaco in maxaan ku raad dhibaato ay dhacdo marna waa ka soo horjeednaa annaga haddaan nahay midowga murashaxiinta muxuu ahay waa ka soo horjeednaa taas gada ka dhacaysa oo qoray iyo hub haddii la qaato yaanba ma aha beer in lagu soo falo looma qaadan qof in lagu dilo looga dhiijiyo lagu cabsi geliyo lagu barakiciyo yaa loo qaata magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaa saaka ku geeriyooday senator Maxamed Yuusuf Xaaji kaas oo hore uga soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Kenya aadan barre ducaale oo hogaamiye hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in senatorka uu maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaalka weyn ee magaalada Nairobi inkastoo aan ilaa hadda la xaqiijinin cudurka uu geeriyooday senatorka ayaa horay uga jabaysinta isla markaana lagu soo daweeyay dalka Turkiga oo dhawaan laga keenay waxaana Yuusuf Xaaji aadan uu ahaa ninka hogaaminaya ama gudoomiyaha isbedelka dastuurka dalka Kenya ku socda barnaamijka loo yaqaan BBI kaas oo dalka Kenya hadda aad uga socda Yuusuf Xaaji waxa uu dhalay Nuuruddin Xaaji ninka lagu magacaabo hadda dacwad ogaha guud ee wadanka Kenya waxaana uu ka soo jeedaa family ama qoys saameyn ku leh dalka Kenya dawladda Kenya iyo Soomaalida wadankaasi Kenya ku nool ayaa ka tacsiyay geeridiisa Maxamed Yuusuf Xaaji oo saakay ku geeriyooday wadankaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya guud ahaan daawadayaal barnaamijka Saaka iyo VOS ayaan intaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkan kan xigay intaan ku kulmayno nabadgelyo Wow.
Thank you.